السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada janalka qaalin media saddexaad oo aan u gudagelayno waxay tahay ama aan fiirinayno xadiga zakaatul fitriga maxay tahay horta zakada fitriga badigeeda xadigeedu waxa weeyaan sida la sheego waxaa la sheegaa saac nabiga calayhi salaam saac buu noo sheegay galaan buu noo sheegay saacaas marka waxaa lagu qiyaasaa dadka ay ku qiyaasaan cabirka iyo ku wanaagsan iyo wax walba galaanka waxay yiraahdaan tusaale ahaan oo kale carabta mud bay isticmaashaa oo ah sacbo ayay isticmaashaa halkii galaan waxaa la yiraahdaa waa qof dhexdhexaad ah sacbihiisa oo afar goor oo badarka sidaas ugu qaada ama galeeda saa ugu qaaday ama allah mustacaan haruurka sidaa ugu qaaday ama bariiska sidaa ugu qaaday waa labadaada sacabood oo aad saa ugu qaada afar goor aad ku shubtay muxuu ahaa galaanka ayaa waxaa loo yaqaanaa saac qiyaas ahaantii dadka hore dadka dambena waxay leeyihiin saaca ama galaanka cabirkiisa waxa weeyaan iyadoon lisdhibin oo waxba aan meel loo soo marin 2176 gram oo macnaheeda ay tahay 2 kiilo iyo intaas oo gram ilaa iyo 2 kiilo iyo adiga muxuu ahaa hal gram oo kale macnaheedu 1 gram 100 baa loola jeedaa 100 gram iyo wax la jecel 200 gram macnaheedu sidaa awgeedaaba sida dhibaatada lagaga baxo badanaa culimadu waxay yiraahdaan ama bini aadamkaba inuu samxi ahaado kale waxaa la sameeyaa 2 kiilo iyo bar ayaa loo xiraa qofka loogu talagalay allah mustacaan in iftaarka laga bixiyo adigoon iswareerin 2 kiilo iyo bar waxaad qofkaas waxaa weeyaan isdhaafi saas bay ayay kaaga waajibtay haddaa dhahdidna waa qiyaasa cabirkaas laftirkiisa aan ku bixinayaan waa ku bixin kartaa oo miisaan aad haysato oo digital ah oo sidaas kugu calculate gareynaya haddii kale miisaanka oo caadiga aad haysatana oo maxaa analog caadiga ee nambarada ay ku tusinaya oo kaliya waxa waa 2 kiilo iyo bar qofka maskiinka ah iska sii marka saaca waa galaankan aad u jeedaan haruurta ay ku jirto ama bariiska saad u jeedaan aad ka arki kartaan marka sidaan hore kugu soo sheegano waa kana galaanka saas uu samaysan yahay waa 4 amdaad buu ku leeyahay 4 amdaad waa maxay waa sacbihii oo saas ah hal mar loogu qaaday badarka kadib afartooda waxay noqonaysaa cabir sidaa waxay ku imaanaysaa galaanka weyn arinka afaraad oo aan ka hadli doono waxay tahay waqtiga zakaatul fitriga la bixiyo hadaba waqtiga zakaatul fitriga la bixiyo sida muxuu ahaay caadadu ay tahay waxa weeyaan maalinta soonka ugu dambeyso habeenkeeda laga soo bilaabo ilaa iyo subaxeeda aroornimo ciida intaan la gaarin ayaa la bixiyaa xilligaas horta waajib yahay waajibka saxda ah wuxuu noqonayaa sida culimada qaar ay qabaan waa maalinta maqribka maalinta ugu dambeysa ee leeyahay bari waa ciid habeenkeeda soonka ugu dambeeyo ilaa ay subax laga gaaray muxuu ahaay ciida intaan salaada laga bixin ka hor ayaa horta waajib ah sidoo kale culimada qaarna waxay qabaan in 2 maalmood ka hor intaysan la gaarin ciida la sii bixin karayo haddaa haysato oo adhowda zaxmad iyo waxa aad ka baqayso waad sii bixin karaysaa iyadana waa jaa'is laakiin waajib wuxuu kugu noqonayaa xilliga kale sidaa kalena waad samayn kartaa laakiin badanaa waxaa ajir badan inaa ogaatana wacan tahay maalinta salaada ka hor intuu imaamku salaada ka bixin ciida ah inaad zakada aad dadka gacanta aad ka saarto kunka shanaad xikmada loo jideeyay zakaatul fitri waxaan ka hadlaynaa maafina maxaa xikmad ah ay ku jirto zakaatul fitriga loo jideeyay horta xikmada ku jirto waxay tahay tan koowaad qofka bini aadamka ah ee sooman hadallo gaf ah ayaa ka dhaco waxyaabo qalad buu sameeyaa intuu sooman yahay si soonkiisa dhaawac soo gaara loo kaabo oo loo dhayo oo loo masaxo ayaa waxaa la dhahaa zakadaas bixi ilaahay dambigaaga ha ku dhaafo soonkaaga ha ka dhig mid soon maqbuul ah sidaa u niyeyso ayaa loo sameeyaa taas xikmadaha way ka mid tahay sidoo kale waxaa ka mid ah in ay tahay kaalmeyn ama caawimaad la caawinayo fuqarada iyo masaakiinta sidoo kalena waxaa la yiraahdaa waa maalin farxadood oo dadka farxadda lagala qayb qaadanayo weliba gaar ahaan la farxad gelinayo muslimiinta kuwooda taagta daran
marka arrimahaas oo dhowrka ahna waxa weeyaan xikmadda loo jideeyey waa lagu sheegaa oo diinta ayaa saa inoo sheegayso arrinka caddeynta u ahna waxay tahay xadiiskan oo ibn Cabbaas uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka warinaya radiyallahu canhu alla kala noqdee furida rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu waajib yeelay zakaata alfitri ayuu waajib yeelay tuhratan lisaa'imi inay u noqoto mid daahirta wixii dembi gaf ka dhacay ee ka daahirta ee ka masaxda ee ka dhayda qofka sooman min allagwi wixii lagwi ee kasoo baxay warafathi iyo wixii dembi oo uu geystay wa tucmatan lilmasaakiini iyo waxa weeyaan cunto ee u noqonayso dadka masaakiinta ah ayaa cunto iyadana u tahay iyo wax markaa quutaan faman addaaha qabla asalaati qofka bixiyaa salaada ciid ka hor fahiya zakaatun maqbuulah qofkaa waa zaka laga aqbalay waman addaaha bacda asalaati qofka bixiyana salaada ciid kadib dabadeeda bixiya fahiya sadaqatun min asadaqaati waxaa lagu tirinayaa in sadaqo oo sadaqooyinka ka mid ah uu baxsaday laakiin wixii waajibka ku ahaa uu ka gaabiyey ee ugu baahan tahay inuu ka toobad keeno ama si kale waxa weeyaan inuu isku hagaajiyo maxaa yeelay way dhaaftay xilligeedana wuu ka faa'iidaysan waa inuu qofka muslimka marka ogaadaa zakada inay leedahay ahmiyad muhiim ah dad fara badanaa jiro ee walaalaha muslimiinta ka mid ah ee caalamka daafihiisa ku wada nool ee lacag haysta ee awooda haddana aanan fahansanayn zakada inay tahay wax waajib ah in la bixiyana ay waajib nagu tahay marka walaalayaal ku baraarugsanaada arrintaa inay muhiim tahay videogan waxaad samaysaan bal qofkii arka qofka kale ha sii gaarsiiso ugu faa'iidaysto sidaas iyo nabadgelyo ayaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah alla waxaan ka baryaynaa acmaasha inuu naga aqbalo ilan waan soo sonneen waan soo salaadnay taraawiix baan soo dukanay tahajjud baan soo dukanay inuu horta ilaahay acmaasha naga aqbalo ciidana si amni iyo salaam nagu gaarsiiyo dhammaanteena asxaabteeda igu xiran oo beeshka ku xiranna waxaan leeyahay ilaahay khayr ha idin siiyo sidoo kale waxaan leeyahay ciid mubaarak muqadaman ayaan idin rajaynayaa meel walba oo adaafaha adduunka kaga nooshihiin waa channelkiina qaalin media sidaa iyo nabadgelyo